wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u diyaar garoobeen diyaariyeenna ciidamadii ay Soomaaliya geen lahaayeen kuwaas oo ka mid noqonaya howlgalka cusub ee dalka Soomaaliya ka bilowday sanadkan bilowga ah ee 2025 wasiirka arrimaha dibadda ee Masar oo la hadlayay dhigiisa Soomaaliya Ambassador Ahmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in dawladda Masar ay xoojin doonto xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay Masar inay diyaarisay ciidamo xoog leh oo ugu tala gashay in dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay caawiyaan ciidamadaasina qaabkii lagu soo qaadi lahaa la diyaariyo oo ah inay hawadana ku keenaan iyo sidoo kale in badana ay ku yimaadaan ciidamadaasina ay qayb ka noqon doonaan howlgalka cusub ee dalka Soomaaliya Masar waxay kaloo sheegtay inay xoojin doonto xiriirka Soomaaliya oo sidoo kale dib oogis lagu sameyn doono inta hadda uu yahay laga balaarin doono Masar iyo Soomaaliya laba dal oo saaxiibo ah oo walaalo ah oo jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika ka wada tirsan ayuu sheegay inay yihiin isla markaana ay ka taageeri doonaan Soomaaliya waxyaabaha muhiimka ah oo ay u baahan tahay ee dhismaha ciidamada qayb waxa kale oo ka ah waxa uu sheegay in arrimaha tababarka ciidamada iyo qalabeyntooda ay ka qayb qaadan doonaan la taliyaan ay soo diri doonaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi oo telefoonka kula hadlay ayaa isagana dhankiisa waxa laga soo warinayaa in Soomaaliya iyo Masar ay wali ku dadaalayaan xoojinta iskaashiga ka dhaxeeyo iyo sidoo kale horumarinta ciidamada Soomaaliya xiriirka soo jireenka ah ee Qaahira iyo Muqdisho u dhaxeeya in la xoojiyo waayidii dambe waxaa jiray mugdi iyo tashwiish iyo sidoo kale waxaa jiray kala jiidasho Soomaaliya ay ku sameynayaan wadamo ku yaala bariga Afrika Ethiopia iyo sidoo kale Masar ayaa ishaya waxa kale oo jira waddanka la yiraahdo Eritrea oo isagana Ethiopia iska soo horjeedaan dhinaca Masar jira iyo Soomaaliya intooda waa is cunufaysanayaan waxay raadinayaan Ethiopia inay meesha ka baxdo ama in Ethiopia culays saaraan oo ay saaxada deganaanshaha Afrika ku soo ridaan dawladda Ethiopia ayadana waxay ku jirtaa halgan iyo dadaal dawladda Soomaaliya ayay isbedel ku sameysay xiriirkii iyo la macaamilkii ay ku sameyn jirtay ayadoo isku day muujiso oo ah tanaasul iyo dabacsanaan si ay u hayso xiriirkii Soomaaliya oo hadda fareeda ka soo baxay Ethiopia mar ayaa aad looga xushmeyn jiray gudaha Soomaaliya madaxda Soomaalida inay xushmeyn jireen ayagiina hadda go'aan ay ka gaareen labada wadan xiriirkooda ma fiicna difaaci ku kala jiraan waa la isku taakiraya ama been baa la isku sheegay sida ay diblomaasiyiin badan ay qabaan wararkaas ayaa ka cusub xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia adigana aragtidaada ka dhiibo maxay kula tahay Masar qorshaheeda Soomaaliya ma garab istaagi doontaa Ethiopia muxuu ku dambeyn doonaa xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia sidee ayuu ahaan doonaa intii Masar ciidamo keento